Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow channelkayga Bare 24 channel. Maanta waxaan kuu soo gudbinayaa cashar aad iyo aad u xiiso badan. Casharkaasi waxa uu ka sheekaynayaa ama uu quseeyaa application la yiraahdo Secure Incoming Call. Sida application-kan Secure Incoming Call-ka inooga muuqata magaciisa waa application wax lagu xirto oo password leh oo aad ku anfacaya oo wax badan aad sugaysay inaad heshid. Application-ka markaan wax yar oo faahfaahin aan ka bixino waxa uu ku qabanayaa oo uu ku xirayaa oo uu ku qarinayaa shaashada taleefankaaga nambarada soo wacaya ee ka soo muuqanaya shaashada taleefankaaga. Tusaale ahaan taleefankaaga waxaad uga tagtay qolka aad guriga ka degan tahay asoo charger ku jira ama miiska ayaad saaratay. Qolkana waxaa ku jira dhalinyaro asxaabtaada ah ama marwadaada ama qof kale ayaa kugula jira. Marka adoo maqan oo banaanka jira suuliga ama banaanka wax ka doontay ayaa lagu soo wacayaa. Marka lagu soo waco waxa macquul ah in telephone numberkaas ku soo wacay la arko kadibna la qabto haddii uusan kugu xirnayn application-ka Secure Incoming Call-ka. Laakiin marka uu kugu xiran yahay application-ka Secure Incoming Call-ka qofna ma arki karto lambarka ku soo wacay, qofna ma qaban karto lambarka ku soo wacay. Kaliya waxa qaban kara adiga waxaad ogtahay password-ka aad ku xiratay Secure Incoming Call-ka. Marka lagu soo wacayana waxa uu ku soo muujinayaa astaan lagu yaqaano application-ka. Shaashada waxa kaaga soo muuqanaya qaybta password-ka la gelinayo, korkeedna waxa ku soo qormaya incoming call. Aynu sii guda galna marka casharkeeni waxaan Play Store-ka aan kala soo degaynaa application-ka Secure Incoming Call-ka. Markaad Play Store-ka aad furatid qaybta wax lagu raadsho ayaa waxaad ku qoraysaa magaca application-ka. Annaga hadda magac qoris inooga ma baahna halkan ayuu inoogu diyaarsan yahay. Kaliya waan dooranaynaa. Markaan doorano kadib noocyadan ayuu ku keenayaa. Noocan ayaa ugu fiican oo ugu habboon in la isticmaalo. Noocan ayaad ka dooranaysaa. Kadib waxa uu ku keenayaa qaybta install-ka. Adigu install ayaad leedahay laakiin annaga install dhihi mayno oo waa uu inoo diyaarsan yahay. Mobile-ka ayuu inoogu jiraa. Kaliya waxaan leenahay open ayaan leenahay. Open marka aan dhahno qaybtan ayuu na keenay waa application-kii gudihiisi. Marka si aan u ogolaano in application-ka uu mobile-ka inoogu shaqeeyo waxaan dooranaynaa qaybtan tigta ah. Waad u jeedaa halkan waxa ku qoran allow permission u ogolow ayaa lagu leeyahay. Marka qaybtan ayaan dooranaynaa tigta ayaan saaraynaa. Markaan tigta saarno waan ka noqonaynaa oo application-kii ayaan sii guda galaynaa. Marka waxaan ka sii dooranaynaa qaybtan allowda. Haddana mar kale allow ayaan leenahay. Qaybtan aad u jeedid ee kugu soo horeysa ee ku soo muuqanaysa waxa lagugu muujinayaa qaabkii aad application-ka u programsan lahayd ayaa lagugu muujinayaa. Waxaa jiro qaybo kale ee ku muujinaya inta nooc password uu leeyahay application-ka, laakiin waanu ka sii gudbaynaa oo kuma mashquulayno si aan u sii guda galno application-ka. Qaybahan marka aad isdhaafsisid waxaad ka dooranaysaa qaybtan okay ayaad leedahay. Application-kii ayaan si toos ah u dhex imaanay oo waxaan doonaynaa inaan programsano oo aan password-na ku xiranno. Marka qaybtan kore aad u jeedid ayaad ogolaanaysaa marka hore. Hadda waa off laakiin on ayaad ka dhigaysaa. On ayaan ka dhignay. Qaybtanna waa qaybtii password-da noocyadooda kala duwan. Button ayaad ku xiranaysaa ama pin ayaad ku xiranaysaa ama password caadi ah lambar iyo eray ayaad ku xiranaysaa ama number kaliya ayaad ku xiranaysaa. Hadda qaybtan password-ka ayaa ugu qurux badan. Number ayaad ku xiranaysaa ama magac ayaad ku xiranaysaa. Qaybtan password-ka ayaan ka dooranaynaa marka si aan password ugu samaysano application-keena. Qaybtan ayaan ka dooranay. Halkan aad u jeedid waxaad ku qoraysaa nooca password ee aad doonaysid inaad ku xiratid. Aniga hadda aadan ayaan gelinayaa oo 4 xaraf ka kooban, laakiin waad ka sii badsan kartaa oo magacii aad doontid ayaad ku qoran kartaa. Okay ayaan leenahay. Kadib continue ayaan leenahay. Mar kale ayaad waxaad ku qoraysaa isla password-kii oo kale. Dan ayaad leedahay. Kadib okay ayaad leedahay. Password ayuu isku xiran marka waad u jeedaa. Qaybtanna waad iska kansalaysaa. Hadda password ayaa kugu xiran oo password-ka waa uu ku dooran yahay. Aanu imaano marka
qaybahana waa qaybihii baaswaradii hadday aan kuu soo sharxayay qaybta ugu muhiimsan waa qaybtan waa kontaktiyada noocyadooda kala duwan iyo qaabkii aad u dooran lahayd hal mar ayaad ka noqonaysaa applicationka si ay kuugu soo muuqdaan kontaktiyadan qaybahan kala duwan ee hadda kaa qarsan si ay kuugu soo muuqdaan mar waxaad ka noqonaysaa applicationka oo exit ayaad leedahay kadib dib ayaad u soo furanaysaa waa kan si toos ayaa lagu dhex keenay qaybihii kaa xirnaana si toos ay kuugu furmeen qaybtan markaan kuu sharxo all contacts markaad doorato tigta aad saartid waxaad password ku xiratay dhammaan nambarada ku soo wacaya ha ahaadaan kuwa kuu seefgaraysan ama kuwa aan kuu seefgaraysnayn qaybtan aad u jeedid contacts unknown-ka ahna waa nambarada aan kuu seefgaraysnayn oo keliya ayaad xiranaysaa lambarada kuu seefgaraysan si caadiya oo la wada arkaayo ayay kugu soo dhacayaan qaybtan select contactskana waxaad ka dooranaysaa oo aad xiranaysaa lambarada kuu qaaska ee aad jeceshahay inaad xiratid ayaad ka dooranaysaa sidaan oo kale tig ayaad saaraysaa kadib okay ayaad leedahay annaga hadda lambar noo qaasa oo aan xiranayna ma lahan waanu ka sii soconaynaa markaa waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan fadlan haddii ay tahay markaa kuugu horreysay oo aad soo booqato YouTube channelkeena Bare 24 channel waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo dhahdo channelka qaybta gambaleelkana aad furatid si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyadeena isla markii aynu soo gelino like-tana aad nagu dhiirigelisid qaybta commentigana aad fikirkaaga inoogu reebtid sina shargaraysid fiidiyowgan si ay asxaabtaada uga faa'iidaystaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته